Dadweynihii toddobaad ee xusbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gaar ahaan Hotel Mansour ee magaaladaasi Burco. Shirkan ayaa ku bilaabmay jawi degan waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe iyo xubno ka tirsan xusbigaasi UCID. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer uu hogaaminayo barasabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo xubno ka socda xusbiyada kale ee dalka sida xusbiga wadani iyo sidoo kale xusbiga kulmiye. Ugu horeyntiinba waxaa hadalka qaatay barasabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo xubno ka tirsan xusbiga UCID waxaana ka mid ahaa hadaladoodii. waxa runtii sharaf weyn gobolka Togdheer oo ah in maanta lagu qabto kalfadhigii toddobaad ee shirka golaha dhexe ee xisbiga UCID. sharaf weyn bay noo tahay gobol ahaan iyo ka magaalo Burco ahaanba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga madaxdiisa kaadariintiisa marti sharafta iyo dadweynaha kale ee ka soo qayb galayba. walaalayaal waxaad ogtihiin in aynu u gudubnay marxalad xisbiyo marxaladda xisbiyada ee aynu u gudubnay ee aynu muddada ku soo jirnay waxaan ugu talagalnay inaynu kaga soo baxno marxaladdii hore aynu ku jirnay ee qabyaaladda. haddii ay iskaga keen milmaan xisbinimada iyo reernimadu ujeedadeenna iyo hadafkeenna iyo yoolkeenna aynu leenahay ma gaadhi doono. ayuu ahaa tirada golaha dhexe 3 meelood oo laba in ka badan baa joogta. waxaa jooga 157 xubnood baa jooga oo inoo fadhiya sidaasaanu kooramku inoogu buuxaa. kii ugu horeeyay xisbi ku qabsado xisbiga UCID baa ugu horeeyay kulli waa la dabageli doonaa. warninka aan diranayna cilmi ma leeyahay aqligiisu siduu yahay ma qabiili baa cadaaladda ma garanaya dadnimadiisu siday tahay Soomaalinimadiisu siday tahay waan intaas weydiinaa ma aha ku shilimaad haya inaan shacabka u tulno. aynu midnimadeena iyo qarannimadeena Somaliland aynu iska mid ka wada noqono. waxaan leeyahay marka ay dhacaan waxyaabo yaryar oo dhexdeena sida qaar siyaasiyiintu ay uga hadlaan ama uu media uga hadlo waxaan jecelahay inaad si wanaagsan oo asluubaysan wixii dhexdeena oo xaal mastuura inaynu kunti iyo gabagabadii waxaa soo afmeeray munaasabadda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Injineer Faysal Cali Waraabe waxaana ka mid ah hadaladiisii. أعود هذا إنه هاي 5 كانوا قلنا إن شاء الله تعالى كان فيهم قلنا وعلينا برعو وحريدي سومالان لكن يا نقول تيدا يعني نقول تينا هنقول محاني يلا هنقول وحن لا هاي حسبيا كتاجرة ذلك من نبض سومالان سومالي ما أنت إنك نوبه أنت لما كهالك هاي شوجر هي سوماليا تليفونك نوكر قاه وأنا بدبادية إليه إنك نفلين مودية سومالي ما تميل قرا دجال كوضة نتكلم نبض ورباي مقالة إلى جروي أيا سومالي ما تميل إسكار كتبا بسوبو أيسه دهار إذا كتبنا بيسبوه هذله إذا كتبنا بيسبران وأنا أوجه هيو دبك جليني يعني يقول أنا حبيت سوري دينارود إنكم يسكو كان تريا ما قال واحد أنا واحد والسومالي كداية حتى السومالي قايبسين أو شن وقايبسين خير أو ما أنت ميل هيزتعان شرين وأرخال كم با نبضه تانا نقول ملي واحد تنن الداية ما نقول كداية دبكة وغير جروي. محمد يوسف عبد الله محمد وردي صومالي كيبل TV برعو.